warninkii hela talawaan hele dhelalala maqal waanadu waxyeelada u diid wariyaha haqdhoor aryaadaha taqliintii wariyahan maqlaahe ma wariyaa la dilay war mal dilna aroosa gali wariyaaga war aroos loo mashxaradiyo mayd lagu baroortaa miska reerka wadayaal isla maalin gelinkeedaa layidhiye matiibaa macnuhu arooska wariyaha waan maqalnay yaa dhintay aryaadaha war ma haysina warka dalaqays ka soo dhihin inaga war suga ununka wariyaa aroos xafladii arooskana wariyaha xaq dhowr heesti aheedaa laga shiday ummadiyoo dhan waa yaabtay aroosaa laysku ogaaye tacsiyaa u soo baxday mugga waa yaabe wariyaha xaq dhowr iyo aroos xaa isu keenay waaba kala fog yihiin warheesku dardaaran buu ahay gabadhaana lagula hadlayoo lalahay ninkaagan wariyaha xaq dhowr war wariyaha xaq dhowr jabhadaha wariyayaasha dilaa loola jeedayey aroosaddu ma jabhad bay ahayd intay ku hureen ninka eray la jabhaday haysaa war horta ummaddu waa kalamaan aniguse waxaan dhihi lahay haddii aadan amxaaloy qarbigoohin kula yaacin dekad cadala waa mudan tahayo duqaha loo sheego qarqarsiga nin rag ayaa ku xiray dumarna qiimeeyey fataaloo dhan saakaa rasaas loola fiirsadaye sawaariikhdu meeshaa la rabay waa ku socotaaye kordhiyaay karaamaad bulshada uga kasbaysaane ururshaha kacaankiiyo maxaa odaga kuu geeyey intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin horta waaliyoba waali ka daranaan maqli jira bal ninkaas wuxuu isu soo jiijiida muggaan maqasheen qalbigu miidin jiijiidmay war ninkaan waxaan u maleeyey inuu gabaga 4.5 ku qaybiyey war anigu waxaan idiin hayaa waxaad ka hadasheen oo dhan wax ka duwan horta dadku waa kala maan wuxuu yidhi waddanu qalalaasiya dagaal qayrkii ka reebay haddii aad xil u qaaddo oo dadka aad qancin weyday dacwad kuu qabsadaan adigaa qaxar doontaye isqabooji walaal ninkii qaan bixi waayana bilayskaa qaban doona adu talow akhbaartu noo sheega miyay ka mid tahay niba sii baariyaysaa xaggaa ee garan maayee irdeer xilnaawadda maa laga qaaday adeer marka hore nasa aryaada odagu qaylo badnaa adigoon iswareerin horta aalder fadhiiso adduunyaa diidday intaas war bakaaro miyaa ka xamaalaysa war hibil meel hege waa ka dhimidi hibilowna meel ka sii hegeydo ka dhimidi hibilowna hoosanga ka dhimidi hoob isin dheegdaan ariiri aadi oo jeeyang yoonay walilay hunguro aga war muxuu ku hadlaa wowgila gubka war luqadiisa yaa gartay war yaa alihi allayahoniga laga qabta inanka sheegtay abii iyo ka kaloo afaweerka awgeennii ismaaciil iyo ordogaankii adkaaday ma ku iibsan karraa intaas wayga su'aale lanyaw ana dad la gadaw yoonay dawladda shalgaadawba ma aragnee ulijeedadaas safaylaba hangedayto aryaadaha shirka batroolka ayaamahan murunkiisu taagnay sirtiisa waa la fashilay wasiirkii batroolkana wariye haaruun macruufa wareestayo sidoo u doocdoocehaaya xogtii uu qarihayayow ka soo saarow bannaanka ka soo dhigay wuxuuna yidhi shirkadda shirka qabatay ayadaa batroolka noo gedaysa waxayna saamiyahaan u leedahay 50% walax ka yar hadda walaxaa la gadaa layskuma ogayna walaxaa la soo bandhigaha laysku ogaaya ma ogisay tahay alla ilaahay abdilo hoosaas eeta eebay ta'aal olkunu tubaaka laangan jabi wasiirka batroolka cabdirashiid miyaan hadda ka hor loo sheegin in wasiirkii ka qabto haaruun macruuf telefoonka oo xilkiisa ku weynayo war hadda wasiirka xilkiisa qalqal ugu jira miya taasu ra'iisul wasaare khayray u talbina u dayhayo minuu xilka ka qaadaya shibna gadhaha warnimada waxaa la yidhi arrintii qarsoonayd haddii dibadda loo saaray soo wasiirka batroolka iyo khayra noqon mayso kollayba waxaan hubaa inaan khayrra isku barbaryac oggolayn war heedhaha war ma haysiine dadku waxay leeyihiin degmooyinka hiliwaa yaaqshid iyo dayniile iyo inta ka dhexaysa afgooye iyo xamar iyo balcad iyo afgooye inta u dhexaysa xal ma loo waayey waxay dadku leeyihiin dalku ciidan badana haddana cadow ku dhuunto wax dilaya badana war maahana waa abwaan cabdidhuux ninka yidhi abni taaman lama helin janannaduna tira male war waxay dadku leeyihiin saldhiggii basroon dumin labada dacal shabeelliyo muqdishow degi mayso war waxay dadku leeyihiin qaranka somalilan maa taageertaan xaggaasaa nabadee war adiga saa'id aw daalanta war go'an hayna wuugila gubya waan ku warramo jigjiga iyo
kismaayo labaduba waa nabade halla taageeraa la leeyahay sababtoo ah alsayid axmed madoobe yaa ka taliyo kismaayo oo balaayo kuma soo hoos dhuuman karto mindha alsayid ra'iisul wasaare sheekh maxamed shaakir balaayo ku soo hoos dhuuman karta goorba asayid madaxweyne waara cadow ku soo hoos dhuuma karaa war cabdullo waa ceebowday burundiyu darfaha ku dheganayo laha naga teginina warnimayaw meelnabad ina hariis ee hoba falaasan bayda wajanaaya seedasan taasna mayan daliil ee widaadkii sheekeenyaawi hayay halis efiyo eraayay muxaadarad kuga wadaayay muqdisho bayda wajanaaya hoba seedii buloondheelo gali wadaadku maxaafadiisii u tago waa ka baydhabo banooniga ku cayaaraya shiiqaanahay hallees cafiyaan leehay banooniyaanna dheela arrooya shiiqu sow isu waafajiyeen war sheekh cabdirashiid allah u naxariistay qasiidadiisaba waxaa ka mid ahayd cilmi barasho iyo cayaar kala foge waa ceeb inaad hadbacayn tahay war shiigii haadoy ama shariifii haadoy lankii basar waal gaaban wadne qamiis iyo tikakeeyo hoba balooni dheela alamiintalay suu bimay taas iyo eeb aha wareedhaha kale maanay siyaasiyiintaad diira jirteen culummadiina ma ku darteen sow ma aadan dhahayn axmed jaakad waxa uu yidhi arrimaha bulshada kama hadashaan aryaadhaha gabarti koongareeska maraykanka ka mid noqotee ilhaan cumar odagi taraamahay waa ka cabaad siisay asagaa tiyuutarka wax ku qori jira iyaduna hadday waxay ugu qortay yuhuuddu dhibaataday ku hayso falastiin caalamku waa ka hurdaa hadda odagaynya adkaysa waayo waxau yidhi ilhaan hees casisho war soomaalida talada iyo tawfiiqda ka habawsane cid ka raganimo badani ma jirto waxaana kaaga filan gabadhii ilhaaneed waa taa odagii taraama ay ka qaylisiisay oo indhaha faraha ka gelisay weliba waxaan kuugu darayaa gabadhii u horraysay ee dayuurad kicisa qaaradda afrika inay ahayd gabadh soomaaliyeed oo guulo barda ku dhalatay oo la yidhaahdo asli cabaade war nin soomaaliya hadda wuxuu ka mid noqonayaa baarlamaanka midowga yurub yaa isaguna madaxweynaha midowga yurub ha ka cabaadiyo war ninka maxkamadda adduunka haysta cabdiqawi baa la yidhaahdaayo waa soomaali wix alla wixii dembi gala adduunkaoo dhan isaguna ha kaga cabaadiya dee war cabdiqawi hadduu nin raga yahay baddeenna kenya nagu haysato ha noo xukumo anuu soomaaliyaan aqaanaayo waa adu eexatay yaan lagu odhan isagoo isleh inuu xaqayaga kenya u xukumaan ka baqaya war ra'iisul wasaare khayre 600 oo askari oo boolis ayuu tababar maanta u soo xiray kuwaasoo la doonay inay sugaan amniga magaalada muqdisho meeqaa horey tababar loogu soo xiray minay amni sugaayaan war maanta u dambaysa 3 qaraxa magaalada ka dhacday aaway amnigay sugayaan aga war ballinkaa hadalkiisa day war amniga waxaa mas'uul ka ah shacabka ku nool magaalada muqdisho iyagaa la doonayaa inay amniga sugaan war amniga Soomaaliland waa sugan yahay ordo qarracda nala dhaafay idinku war xaafadaha muqdisho wax ka dhacdhacaanood sheegaysaane ammaanka madaxtooyadu waa sugan yahay wax soo gali karana lama arko war anigu war baan idiin hayaa gudoomiye degmaan la soo wacay oo qurbaha ka yimid waxa la yidhi gudoomiye xaggeed soo maraysaa wuxuu inuu degmadii aan mas'uulka ka ahaa baan dhex marayaaye meeshaan maraya sama aqaanee bal darawalkaan idiin dhiibayaaye isaga weydiiya qoodhiin iyo xeradiin ma ninkaa xilka loo dhiibay ee degmada mas'uulka looga dhigaad u malaynaysaa inuu dadka khayr u soo wado kaasoo kalaa laga raadinayaa amnigaan ka hadlayno haanasaado ani gorode langololodka dhuuriya ma ingoro jireen kan manaari aryaa amnigiina idinku sugta war adeertaa ku jira weligiinba war dawlad been sheegayso mucaaradka nacab ilaahay qoorta idinma gelso meel fiican haydin geeye